diyaaradaha dagaalka Sacuudiga iyo Kuwait iyo laba diyaaradood oo ah nooca B-52 ee Mareykanka ayaa ka qayb galay dhoolatus xooggan oo ay ku muujinayeen xiisadda gacanka ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan. war qoraal oo uu soo saaray militariga Mareykanku ayaa lagu sheegay in labada diyaaradood ee waxduqeeya oo ah kuwa nuclear-ka xambaara inay dul mareen bariga dhexe iyagoo muujinaya awoodooda ay u leeyihiin howlgallada bambooyinka. labadan diyaaradood ayaa ka soo kacay saldhigga Royal Air Force ee ku yaala magaalada Fairfield ee dalka Ingiriiska Axaddii, iyagoo ka gudbay bariga Mediterranean-ka una sii gudbay gacanka Badda Cas, iyagoo ay wehelinayeen diyaaradaha dagaalka ee Kuwait iyo boqortooyada Saudi Arabia ka hor inta aysan ka bixin gobolka. qoraalka Mareykanka laguma sheegin tirada iyo nooca diyaaradaha dagaalka Sacuudiga iyo Kuwait ee ka qayb qaatay howlgalkan. taliyaha ugu sarreeya ciidamada cirka Mareykanka ee bariga dhexe, LT General Alexis, oo arrintan ka hadlaya waxa uu yidhi: hanjabaadda Mareykanka iyo saaxiibadayada ma noqon doonto mid jawaab la'aana. howlgalka noocan oo kale ah wuxuu muujinayaa awoodda aan u leenahay inaan ka hortagno kuwa naga soo horjeeda oo aan ka adkaanno haddii loo baahdo. ciidamada Israa'iil ayaa iyaguna sheegay in labada diyaaradood ee B-52 ee Mareykanku ay ku sii jeedeen gacanka Faris iyagoo sii maray Israa'iil, waxayna intaa ku dareen in 3 ka mid ah diyaaradaha Israa'iil ee F-16 ay gelbiyeen labada diyaaradood ee Mareykanka ee waxduqeeya markii ay ku sii jeedeen gacanka. dowladda Iiraan weli wax jawaab ah kama bixin tallaabada ay qaadeen Sacuudiga, Kuwait iyo Mareykanku. waxay u muuqataa inuu Mareykanku tallaabadan uga jawaabayay weerar ay Iiraan ku qaaday marka Mareykanku leeyahay asbuucii hore. dhinaca kalena, Iiraan ayaa sheegtay inaysan ku tala jirin inay ka baxdo wadaxaajoodka lagu soo noolaynayo heshiiskii nuclear-ka ee 2015 kadib markii isku-duwaha siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub Josep Borrell uu sheegay inay yar tahay rajada uu ka qabo in heshiis la gaaro. afhayeen u hadlay dowladda Iiraan oo la yidhaahdo Cali Jahrami ayaa sheegay in dalkiisu aanu ka bixin miiska wadaxaajoodka si dib loogu soo nooleeyo heshiiskii hore ee nuclear-ka. afhayeenka ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in Iiraan ay ku dhegan tahay mowqifkeeda ah in la iska xiro ama laga gudbo arrimaha la xiriira hay-adda caalamiga ee nuclear-ka ka hor inta aan la gaarin wax heshiisa. isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi sidan: damaanadda wadaxaajoodka waa inay noqotaa mid lagu kalsoonaan karo. joojinta baaritaanada hay-adda nuclear-ku waa qayb ka mid ah damaanadaha aan raadinayno si aan u gaarro heshiis waara oo dhinaca nuclear-ka ah. afhayeenka wuxuu intaasi ku daray in Iiraan ay sugayso jawaabta Mareykanka ee soo jeedintiisa, islamarkaana ay Iiraan muujinayso mas-uuliyad sidii loo abuuri lahaa jawi iyo shuruudo lagu xalinayo faylalka nuclear-ka.